Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada walaalayaal, magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkeenii ugu horreeyay ee business study, barashada ganacsiga. Marka hore intaanay casharka gelin, waxaan rabnaa bal horta inaynu fahanno oo overview ka haysano. Horta ganacsi maxaa weeye? Adiga ahaan hadda daawadow ganacsi maxaad u taqaan? Isla markiiba maskaxdaada waxa ku soo dhacaysa waa ganacsi wuxuu ahaadoba la sameeyay kaliya waxa loo sameeyay waxa weeye waa in profit laga helo. Tusaale ahaan beer baa la qotay oo waxa weeye ganacsi beereed baa la sameeyay. Ujeedada ugu dambaysa waxa weeye in profit laga helo. Baawur baa la soo gaday ganacsi waxa weeye faa'iido looga helo. Guri baa la dhisay si loo kareeyo faa'iido looga helo. Yacni ganacsigu waxa weeye waa wax kasta oo waxa weeye laga shaqeynayo shaqo u baahan taasi oo waxa weeye faa'iido waxa weeye laga raadinayo. Waa wax kasta oo yacni faa'iido laga raadinayo ganacsigu waa si ay u naqaan. Okay. Muxuu yahay marka muhiimadda inuu baranayno? Ganacsiga maxaynu baranaynaa? Muhiimadda ugu waaweyn waxa weeye way badan yihiin. Laakiin saddex baan nagu soo qaadanay. Muhiimadda koowaad waxa weeye waxaad baranaysaa qaabkaad waxa weeye decision ku qaadan lahayd. Qaabkii aad go'aanka u qaadan lahayd saxda ah oo waxa weeye waxaad garanaysaa suuqii baad garanaysaa. Sidoo kale waxa weeye qaabku suuqu u shaqeeyo haddaad garanayso. Dadkii waxa weeye aad consumerskii suuqa jooga alaabtada iibsanaya qaabkii u dhaqmaayeen baad garanaysaa. Marka taasi waxa weeye ka caawin doontaa inaad decisionka ama go'aanka ugu fiican inaad qaadato. Sidoo kale business goorta barato waxaad baranaysaa sidoo kale qaabkii uu suuqu u shaqeynayay. Suuqa waxa weeye ganacsigu qaabku u shaqeynayay. Sidoo kale waxaad baranaysaa qaabka waxa weeye waxaad baranaysaa qaabka dadku ay ganacsiyada ay u abuureen. Sidoo kale adiga nafkaaga aad waxa weeye aad ganacsi u abuur lahayd. Runtii haddii aad waxa weeye businesskii barato aad bay kaaga fududahay inaad ganacsiga abuurto oo qofka kale aan businesska baran iyo adiga waxa weeye probability badan baad haysataa adigu inaad ganacsi aad ku abuuri karto ganacsigaaga ku noqon karo mid faa'iido badan. casharkeenan maanta oo iska hordhac weeye waa introduction. Business maxaa weeye waa shaqo kasta oo la qabto taasi oo waxa weeye ujeedadeedu tahay waxa weeye in profit laga sameeyo. Business ka sii ognahay waxa weeye meherad baa la furayaa meheradda maxaa laga rabaa in faa'iido kaliya laga sameeyo. Okay. Barashada ganacsigu wuxuu ka taxalluqaa inaad hesho waxa weeye necessary knowledge-kii cilmigii waxa weeye asaasiga ah oo waxa weeye asaasiga u ahaa ganacsiga iyo xirfadii sidoo kale iyo dabeecadihii si aad u qabato waxa weeye shaqooyinkaas oo ah in waxa weeye alaabtii soo saaro ama inaad waxa weeye waxa tahay dukaan oo kale distribution-kii qaybintii oo ah waxa weeye inaad qofkii soo saaray ka qaadato dukaan oo kala tahay shirkad baa soo saaray shirkadaada ka soo qaata sidoo kale adaa sii qaybiya ama shirkadda nafkeeda distribution bay samaysaa goortay waxa weeye dukaanada kale u qaybinayso. Marka qaabkaas aad ku baranaysaa qaabkii sida ugu wanaagsan oo waxa weeye wixii loo soo saari lahaa waxa weeye distribution loo sameyn lahaa iyo waxa weeye skill kale oo badan oo ku taxalluqa. Marka importantiga faa'iidooyinka waxa weeye barashadu maxay yihiin businesska runtii way badan yihiin ilaa waxa weeye tirabeel weeye ilaa 20-30 waa gaaraan laakiin saddex baan inagu soo qaadanay. Okay. Saddexda inagu soo qaadanay waxa weeye wuxuu ka caawinayaa inaad waxa weeye decision wanaagsan aad qaadato ganacsiga maalinlaha oo waxa weeye ganacsada tahay haddaad ganacsigii barato businesskii barato waxay ka caawinaysaa inaad decision-kii si fudud aad waxa weeye ku gaari karo si oo decision-ka ugu wanaagsan aad gaarayso adigoo kaashanaya aqoontii iyo xirfadii aad waxa weeye baratay. Sidoo kale wuxuu ku siinayaa inaad fahanto qaabka uu adduunku u shaqeynayo ganacsiga adduunka inaad fahanto. Sidoo kale wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad ka fakado sida dadku waxa weeye ganacsiyada u sameeyeen oo abuureen adigiina waxa weeye ay ku fududaato in ganacsi aad samaysato adigu leedahay. Marka maanta casharkeenu waa iska ahaa waa introduction buu iska ahaa labada su'aaloodna waxa laga rabaa adiga inaad ka jawaabto. Su'aasha koowaad waxa weeye role-ka doorka uu ka ciyaaro ama uu ku leeyahay business-ku society
hada roolka uu ku leeyahay society-gaagu muxuu yahay business-ka ganacsiyadu ay ku leeyihiin taas waa laga rabaa sidoo kale waxa laga rabaa inaad ka jawaabto way ay muhiim kuugu tahay business-ka u baranaysa hadda adiga ahaan kulliyadda wax laga yaabo business-ka inaad barato dhigato way aad business-ka u baranaysa muhiimadda aad business-ka u baranayso maxay tahay marka maanta casharkeen intaas ku soo gabagabeynayaa waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen waxa weeye wuxuu business-ku yahay iyo waxyaalaha loo barto su'aalahana inaad ka jawaabtaan waa muhiim runtii marka intaas ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh